بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxay bishu tahay lixdii bishii labaad 2020 oo maalin khamiis ah waxaa shirkii khamiislaha ee dowladda Puntland lagu qabtay madaxtooyada Boosaaso waxaa shir gudoominaya madaxweynaha dowladda Puntland arrimaha laga hadlay waxaa ka mid ah safarkii madaxweynuhu ku tagay dalka Kenya oo uu kula kulmay madax badan oo dalka ka mid ah iyo safaarado sirarla oo kaga qayb galay waxaa kale oo laga hadlay qiimaynta waxay guddiga qiimaynta lacagaha lagu qaado magaca dowladda Puntland arintaas waa laga dhageystay waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka amniga oo ka bixiyay ciidamada la diiwaan geliyay dowladda Puntland iyo tirakoobkooda arrimaha kale laga hadlay waxaa ka mid ahaa xaaladda gobolada iyo maamulka degmooyinka iyo hindisaha horumarinta degmooyinka aan ku jirin GBLT-ga oo wasiirka arrimaha gudaha iyo federalismka iyo dimuqraadiyadda uu ka warbixiyey waxaa kale oo laga dhageystay wasaaradda qorsheynta deeqaha Soomaaliya iyo aragtida ay ka qabto Puntland oo wasaaradda qorsheyntu iyana laga dhageystay qodobada iyo kuwa kala badan ayaa lagu falanqeeyay maanta shirka khamiista. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.